ugu dambeyntiina magaalada Hargeysa waxa ku soo badanaya goobaha lagu barto jirdhiska. Caruurta ayaa lagu tababaraa ciyaarta qalaama rogodka. ciyaartaas oo la sheegay inay faa'iido u leedahay koriinshaha jirka iyo waliba maskaxda ee caruurta yaryar. warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Akulle. magaalada Hargeysa waxaa laga hirgeliyay dugsiyo lagu tababaro caruurta yaryar iyagoo la barayo ciyaarta qalaama rogodka. kuwaasi oo si toddobaadla u qaata casharo iyo jimicsiyo kala duwan. ciyaartan ayaa caruurta la sheegay inay ka caawinayso dhinaca caafimaadka iyo jirdhiska. waxaan bilownay inaan wadankayga ka hirgelino oo aanu macallimiin Ethiopian aanu keenno oo no bara dabeetana anagu hadhow aan macallimiin noqono. imika macallimiintii aanu keenay waxay soo saareen ardaydii baa maanta macallimiin ah kuwa wadanka gudihiisa ka iyo kuwa wadanka dibadiisaba ah oo imika ay qaar Ethiopia ku haystaan kalaabo. waalidiinta caruurtooda xarumahan keenay ayaa ka dareen celiyay isbedelada iyo faa'iidada ay u leedahay tababarkan caruurta. waxay ku liftay ciyaalku inta waqtigooda wax kala kulmin lahaayeen TV ama waqti lumis inay waqti ka faa'iideystaan caafimaad ahaan waxaan doorbiday inay wanaagsantahay jirkooda. tirada inta la waxay iga xun iyo waxyaabo kale oo khalada gala ama kooxo israacaan bulcada oo waxyaabo xun bartaan ayaan doorbiday inay u fiican tahay masaxan iyo caafimaad ahaan inaan halkan keeno difaac ahaan ay naftooda isdifaacaan. imika waxay dhiganayeen muddo ilaa 3 bilood. sidoo kale kuma koobna xaruntan in ay tababar ku qaataan kaliya caruurtu gaar ahaan inamadu, balse waxa sidoo kale iyaguna aan ka maqnayn oo wax ka barta hablaha. ujeedada ugu weyn ayay ku tilmaameen si ay naftooda u difaacaan haddii ay halisi soo wajahdo. ujeedan meeshan soo galay anigu ujeedadaasina waxay ahayd inaan ahaantayda inaan difaaco oo cadow inaan marka tahay horta cadow fara badan bad yeelanaysaa inaan tun sideedana waa hilib bisil oo cid kastana waxay rabtaa inay dhacdo amba ay ugaarsato amba ay weerarto. marka farqiga u dhaxeeya waxa weeyaan markan meeshan soo galay aan dhiganayay waxay gashay horta kalsooni aad iyo aad u fara weyn bay gashay. maantana kalsooni weyn baan nafteeda ka qabaan meel kasta ku mari karayo. baryahan waxaa ku soo badanayay magaalada Hargeysa goobaha lagu barto jirdhiska iyo duruusta kale ee la xidhiidha tababarada nafta. Khadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa. intaana daawadayaal waxaa inaga dhan barnaamijkeena qubanaha maanta tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.